السلام عليكم. اسكسودونا قد وناكسن شانلكي شاني بيوتي وانا شكرية ما هنتهي وحنيها شيكو ان وحوين ان شيكان كأخرستي قبراتي إلى تالية كل كاس محيداني قبل الصوماليات ماها رجبوتنا ماها maaha waxaas oo dhan kolka waa wadanada kale Afrikada ay u dhalatay mesela kuwa sheekooyinka dhici kara dhulkeena ambaba ka dhacaba gabadhu sheekadiisana ku bilowday waxay tiri waxaan la sheekaystaa amba la socdaa amba Faransiis waxa loo yaqaanaa adimid khaas baa loo yaqaanaa af Soomaali waxaan ku macnaa ma aqaano af Anglais mistress bilo ahayd adu waxsaas gabadha ma qabo adi xaas buleeni kani iyada ma qabo iyada waa saaxiibo kalka waxay tiri in ninkaas la socdaa waa director salo yaqaan Faransiis amba CEO waa tiraadaan indika waana malay af English and adu haysta and waxa la dhahaa business win bu madax u yahay kolka aan laba sanadood bas la socdaan iyadoo shaqadii laga soo ereeday ay ka shaqeynaysay ayay la kulantay ninkani hadaba ninkani uu caawiyay wuxuu ku caawiyay inay muddadii dhibaatada ee bila shaqada iyo aan kadeedkii jidkii inay dhaafto uu ku caawiyay uu gacan qabtay baa la dhaaf Soomaali aan waxay tiri wax kasta oo loo sameyn karo waa ii sameeyay waxay tiri wuxuu ii kireeyay aqal laba dabaqa oo uu bixiyo 700,000 oo faran bishii la socda maaha euro iyo dollar waa 700,000 oo faran waxay tiri gaari buu iibiyay 20 milyan ah waxay tiri wiil aan lahaan jiray oo hore u dhalay xaas hore aan ahaaniyo la soo fur gabadha en waxay tiri wiil aan hore u lahaan jiray oo qofka hore ay u dhashay wiil oday hore u dhashay wuxuu geeyay iskoolada ugu qaalisan ajnabigu leeyihiin wadanka and waxay tiri waxa ay haysta bay tiri hadaba dhibaato ay haysato oo ah dhibaatada dumarka rag la qabala socdo oo dhan ay qabaan sida frustration waxaan la dhaho walwalka badan iyo hinaasa badan iyo dhibaatadaas saas ay haysta bay tiri and maadaama aan la socdo nin xaasle waxay tiri talabaad waxa weyn in guriga aqalka wax kaste magaciisa ku qoran yihiin ee ani wax magacayga ku qoran ma jiro waxay tiri ay muddo bay tiri imika laga soo xigo dhowr bilood waxaan bilaabay ان محل دهاينا ويديستو ان 17 مليون او فرن سيدي ان بلابن كري لها محل دهاي بزنس اني اي خاصة ان بشقة اني اي خاصة ان سميسن لها اون كهوس بحد جعنتيسا يباهيدا ان كبحو waxay tiri in waxaan rabaa inaan business ka furto maadaama aan guriga iska joogo aan welina shaqeyn oo shaqahayn tiri waxaan taa ii raacsan bay tiri inuu odaygaygu waxyaabuhu isiiyo waxa ii raacsan bay tiri inuu 1 milyan oo farana bishiiba ii siiyo aan maxay ahaydeen si aan ugu gadan karo amba ugu iibsan karo amba de aan uga dhigan karo lacagta uwaafta inaga noqonaan de hadii dar aad isku siisato amba waxay doontaa ku qabsatay ma iyada u khaasa ayuu siiya arad beel balodin jiraan ka filaa af Soomaali and waxay tiri intaas uunan de bixinayana kari iyo faktuuradiisa oo dhan isaga bixista ay tiri waxaan dareemaa inuu ayaanba ayanta kasii dambaysa uu aan nahay qof isaga ku hoos jirta oo gacantiisa ku jirta oonan lahayn bay tiri in maxaa la dhahay freedom lahayn liberté lahayn maxaa la dhahay oo cidhiidhi ku jirtaan dareemaa ma faraxsani waxay tiri kolkii ugu horeysay waan faraxsanaan jiro way fiicneed noloshu way cajabisay laakiin imika aan aad baan ugu dul qaadan kar lahayn noloshan gacanta bila aadanka ma gacantiisa inaan ka hoos baxo oo anigu noqdo qof shakhsiyad aan iskaani karta
isaguna wuxuu iga leeyahay macamha degdegin. waxay tiri waa qof shakhsiyad ahaan waa qof aad u jaalu waxaa la dhahaa dadka hinaasaha badan, qof hinaasa badan waaye. waxay tiri wuxuu ii diiday inaan asxaab yeesho, asxaaba malihi. waxay tiri ma bixi karo, wuu diiday inaan baxo. haddii aan baxayo waa inaan isaga la baxo, cid kale la bixin oo dibadda banaanka aanan aadin. waxaan dareemaa cidla bay tiri. sid kolka gabadha waxay leedahay qofkaasaana iigu wanaagsan macam sidana ila dhaqmaya, sid u fahantaan maxaa la dhahay shakhsiyadiisa, comportementgiisan sid u fahmi kartaan. muxuu iigu diidan yahay inaan maxaa la dhahay businesskayga iska furto amba de shaqo raadsado amba maxay hadan aan noqdo de naag isku filan. taas isagana uu wanaagsan oo dee ka dhimaysa sharjigii aan ku hayay lacagtii badnayd uu ani iigu bixinayay baa ka yaraani doontaa. maadaamay ka yaraani ma fahmayo wuxuu iigu diidan yahay. waxaan u baahanahay idinkoo caawinaya inaad ii sheegtaan sidii uu ii siin lahaa lacagta oon uga farabixi lahaa. kolkaa sheekadaas aad yani ii cajab gelisay, ina yaabisay. wax badan, fikrado badan oo madaxayga soo galay. waa caadi gacanta ku quudisa ama gacanta sareysa goor walba amarka bixisa. waa caadi inuu idhaahdo daa bixin siduu doono ula dhaqmo, maadaamuu yahay de qof lacag leh oo iyadii dee maxaa la dhahaye gacanta uu ku hayo. waa caadi, waxawaan gacantii sareysa yaa u sareysa meel walba oo amarkiisa soconaya oo hadalkiisa soconaya. taas waa taa. may gabadh ahaan wallahi waa shay iga yaabisay. qof gabadha oo maxay hadana autonom iyo independence iyo freedomka dhadhamise wuxuu ka dhigan yahay. wallahi way adagtahay inaad noloshaada idil qof aa gacan ka gelisid. caawimaad waa iska fiican tahay. kolkii horeysay inaad ublaa shaqo ahayd, ilmay haysatay, inuu caawiyo uu daryeelo waa caadi. maxaa la dhahayey intaa ha bixin iyo ha sameyn, wallahi ma fahmi karo. maxaad kula talin lahaydeen siyaabahee uga qaadi kari lahayd ninkaas lacagtaas ay rabto? maya sheekadana sidaad u dareenteen siduu maniga yaabiyey mise wax caadiyaad u aragtaan oo dhibaato lahayn? iisoo sheega, shaargareeya, subscribe, like. hadduu ku cajabina dislike. wakaasi, assalaamu calaykum.